Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay walaashay qaaliga bisha fadliga insha Allah badan Ramadaan ilaahay noo dami dhaafo ilaahayna naga dhigo maaragtaa kuwii khayrka badan ee ku jira ka faa'iideysta insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa walaalkay walaashay qaaliga arrin muhiim u ah xasuusta amba sidee wax loo xafidaa marka qof kasto maanta muslima wuxuu rajeynayaa waxyaabuhu uu rajeynaya ugu muhiimsan waxa weeyaan waa xafidaadda qur-aanka kariimka weeyaan amba xadiistii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo waxyaabo badan oo naftiisa maclaa u taraya marka waxaan ka hadlaynaa xasuustan videoga ugu horey ka hadlaynaa iyo hordhac waan ka dhiganaa iyo videoyasha soo socda insha Allah xasuus ma ka hadli doonaa daawasho wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta marka qof kastaba waxaan rajaynaynaa maskaxdeenu intay si fiican ugu shaqayso aan si fiican wax u xafidi karayno degdeg aan wax u qaybi karayno marka maanta waxaan ka hadlaynaa walaalkay walaasha qaaliga xusuusta amba sidee baa maskaxdeena wax markay galaan bahalkii sidee bay u galaan iyo sidee bay maskaxda u soo saartaa horta ta ugu horeysa waa intaan wala fahmno maskaxdeenu maanta waxay ka mid tahay waxyaabaha adag amba waxyaabaha ugu adag markay tahay wax baaritaan amba wax cilmi baaritaan ay fahmitaankiisu aad u adag yahay lianna maskaxdeenu waxyaabo badan bay maaragtay isticmaashaa siday wax u soo saarto amba ay wax u xafido maaragta marka ilaa waqtiga la joogo aad iyo aad buu u adag tahay cilmi baaris marka la yiraahdo sidii loo sheego boqolkiiba boqol ama boqolkiiba 90 la yiraahdo waxaa ku xabad far lagu tiriyo xafidada sidaa ay wala dhacda taasoo ah maskaxdeenu adag oo ilaahay wax fiican uu na siiyey oo bil'aadamkii lama xilligan ku daalan yahay maaragta siduu u fahmi lahaa laakiin waxaan isku dayaynaa wixii maanta laga yaqaano cilmiga maskaxda qaybta weli xafidaadda ayaan iskala wadaagi doonaa insha Allah tusaale maanta haddii aan soo qaadano waxaa la leeyahay xafidaad marka la yiraahdo laba xafidaad baa jirta xafidaad waxaa jirta degdega amba xafidaadda shaqada oo fuday iyo xafidaad dheer baa jirta maskaxda markaad taad xafidid khalaas dib kaaga soo baxayn ka tusaale haddii aan soo qaadano xafidaadda degdega maxaa ka mid ah inka asxaab markaa inka soo qaad qof isbaritiin uu ku siiyo lambarkiisa telefoonka waxaad qoraysid ama la hadlaysid ama meel ku qoraysid waxa xafidaadda degdega maraysa markaad dhowr mir aad socodina waxaad arkaysaa adigoo iloway marka qaybta way ku dhacaysaa xafidaadda degdega ayay ku dhacaysaayo waad ilowaysaa degdeg dhowr mir kadib waa ilowaysaa taa waxa weeyaan waxyaabo waxa la yiraahdaa badanka waxay qaabishaa qaybta yar degdega toddoba shay bay qaabishaa ama ka soo qabto toddoba waxay noqon karaysaa kalimadood amba toddoba bahalkii lambar bay noqon karaysaa oo maskaxda ku ridaysaa waqti yar oo kooban kadibna ka baxay qaybta labaad ee noo muhiimsan anaga aan wala rajeynayno waa qaybta ku raagitaanka amba markaa wax xafidid waxba ka baxaynadid kaba soo qaad maanta markaa quraanka xafidida ama suuradda markaa sida u akhrisid khalaas dib kaaga baxay taaba wala rajeynayna qaybtaan waa si dib taagi doonaa insha Allah tusaale iminka markaa soo qaadatid qaybta waxa la leeyahay bahalkii xusuusta dheer waxa loo kala saaraa saddex qaybood baa loo kala saaraa qayb waxa la yiraahdaa xusuusta ku saabsan wixii procedural amba wixii ma aragtaa sidii wax loo qaban lahaa iminka soo qaad markaad gaari bal qofku wadayo gaariga saa loo wado ama baaskiilka saa loo wado amba ma aragtaa gitaarka sida loo ciyaaro ama pianoga saa loo ciyaaro qaybta bay ku dhacayaan marka qaybta wixii ma aragtaa fargacmeed bal oran karayaan wixii gacmaha amba ma aragtaa wixii u baahnaa procedure amba etaabo la marayay ay xaga ku dhacay talabaadna waxa weeye waxa la yiraahdaa qaybta ma aragtaa semantigu waa hadalka weeyaan qayb semantigu waxa ka dhigan tahay hadalka nacam qofku hadduu hadlo kelmadaha ma aragtaa uu adeegsanayo amba xafidaadda ma aragtaa waxyaabo cashirkiisa ama ha noqoto waxyaabaha ku dhan waa qaybta la yiraahdo ma aragtaa cilmiga guud ahaaneed marka xaga ay ku dhacayaan kuna qaybta saddexaad oo ah bahalkii mémoire épisodique waxa weeyaan mémoire épisodique iyaduna waa marka aragtay ka soo qaad wajigii qofka wuxuu ku yiri ma aragtaa waxyaabaha ay ku dhan ma aragtaa maalintii kugu horeysay wax waxaysay maalintii kugu horeysay ma aragtaa qofaas aragteen waxay ku dhan marka qaybta saddexaad ay kuna ku dhacay marka haddii shartu saarno inkasta ma aragtaa ay iska adag tahay macnihiistigeedu waxa laakiin haddii aan saarno imka tusaale haddii aan soo qaadano maanta aroos baa lagu kayaaray qof walaalka amba saaxiibka ku soo bahalkii ku soo marti qaaday wuxuu ku yiri arooskayga ka soo qayb marka arooska tagtid waxaad arkaysaa miisiga ka socda maqlaysaa arooska waxaad arkaysaa bahalkii dad qurux badan baa arkaysaa maalinta waxaad arkaysaa waxyaabo badan baad arkaysaa dhulka qurux badan baad arkaysaa waxaad maqlaysaa macla waxyaabo badan
waxaad macala ururinaysaa cuntayaal udgoon baa ururinaysaa macala waxay taabanaysaa dad badan waxyaabaha ay ku dhan marka ugu horeysa maskaxda qayb kastaba qaybteeda ku dhacaysa amka araga qayb baa jirta maskaxda ku saabsan araga xagay ku dhacaysa maqalka macala qayb kastaba maqal meesheeda ku dhacaysa marka qayb kasta meesheeda ku dhacdo waxay soo marayaan qayb maskaxda ku taala iyaduna ama xorun yaro maskaxda ku taalo aad iyo aad muhiima ayay soo marayaan oo la yiraahdo hippocampka farsiis ba hippocampus balkii anonge af Soomaali waxa la oran karaa malay xaybta badda hadii khaldameyn oo iyadu u ahaa maaragtay sidii faraska maaragtay badda oo kale ayay u egtay marka taabay soo marayaan taaba kala bahalkii shaandhaynaysa oo maaragtay isku xiraysa macala marka isku xidho ayay maaragtay Britole marka u baahnad ka soo qaado dhowr cisho sanadood ama dhowr bilood kadib markii ka soo wareegaan qofku weydiin war arooskii hebel sidoo kugu taxay marka aragtay waa soo saaraysaa waxa leedahay okay hagaaba bahalkii maskaxda horta qaybta hore soo maraysa qaybta ugu horeysa markay soo marto ayay bahalkii kale u tagaysaa hippocampkuna isaga maaragtay meel kasta garanaya xasuustii meel kasta meesha yeelay marka isaga isku xirxiray wallahi run ahaan marka la sheego bil aadanku maanta wuxuu isku dayaa maaragtay ka soo qaad aaladan ordinatorka waxa ku jira diska jira ku jira bahalkii RAM bay leedahay waxay badan oo aan garanayna jira maaragtay siday wax u maarayso amba siday wax u qabato amba siday wax u xafido la oran karaa maskaxdeenu waxay ku dhanmaa maanta maskaxdeenu markay wax xafidayso waxa soo mara bahalkii waxa la yiraahdaa réseau weeyaan neuronalka baad waxaynaya bahalkii xasuusta waxay ka imanaysaa réseau neuronal ma xasuusta maaha marka meel wax yaro iska yaala meel oo kaleeda maskaxda isoo qaba waxa maaha waxay u baahan tahay maskaxdu intay réseau neuronalka is connectiyo mid kastaba ka kale ugu tago neuron kastaba neuronka kale u tagto sida maaragtay ay noqon lahaayeen maaragtay xasuus dib ugu soo bixi marka waxaad arkaysaa sida bil aadanka baaha maanta waxaan yaabahan waxaynama wuxuu ilaahay maskaxdoona siiyay waa wax maaragtay ka badan aba fahamkiisu aad iyo aad hadii si fiican loo fahmana waxa badan laga qaban karay marka xasuustu waa wax maaragtay isku wal xiran weeyaan wax meel kaliya yaala maaha markaana sida u soo baxdana waxa ka soo saari karay xasuus marka dib u soo saari sidoo kale sida saaxiibka markuu su'aasha ku weydiiyay arooskii hebel iga waran aad sanadkii hore su'aasha baad bahalkii arooskii ama qashay su'aal bay ka iman karaysaa marka waa soo saaraysaa maskaxdaada waxa kugu soo baxay waxyaabihii xasuusinayso ku dhan ha noqoto suurtii wixii aad aragtay waxyaabaha maqasho ku dhan ayaa marka u soo baxaysa dibadda marka ugu maaraysa ta kale waxay noqon karaysaa heesa maqashay ka soo arooskii saaxiibka aad ka maqashay oo macaanidu ku cadiyay marka soo heesha maqashid amba waxaad cuntada aragtid ka soo qaad cuntada ku cuntay amba waxyaabaha aragtid markii kasta way soo noqonaysaa dib u soo baxaysa marka alxamdulillah ilaahay maskaxdanu nasiiyay aad iyo aad u fiican taho wallahi fahamkeyguna waxyaabo badan buu ku taray noloshaada marka hordhacana waa inta weeyaan waxaan u maleeyaa way la fahamtay walaalkayga qaaliga sida maskaxdu ay wax u maaraysan amba sida wax ugu dhacaan waxaan haddii aan soo koobo waxaa jira qaybta degdega oo maskaxda 7 shay xafidi karaysa 7 kelmadood ama 7 lambar kadibna waxaa jira qaybta maskaxda dheer amba xafidada dheer amba bahalkii la mémoire long terme la oran karaa Faransiis markay ku dhacdo kadibna hadii maskaxda markii ka dib u soo saari karaysa waxa oranay kala xasuustu ma wax meel yaala laakiin xasuustu waa wax isku wal xirxirano oo neuron connection neuronal markay dhacdo badan maaragtay réseau neuron markuu iskariyo ay xasuustana imanaysaa marka waxa ka dhigan tahay miraha maaragtay Soomaali ma garan xurun kasta maaragtay maskaxda kamida neuron kasta maskaxda kamida markay baalka isku xiriiro ayaad maaragtay dib u soo baxaysa xasuustiyo marka way noqonaysaa xasuus insha Allah waxaan u maleeyaa ila fahamtay fiidiyoyaasha soo socda waxyaabo badan ma ka heli doona xasuusta sidee baa xasuusta loo hagaajin karayaa sidee baa maaragtay dadku markay xanuun ku dhaco maaragtay marka xasuusta markuu beelo sidee baa maaragtay uu beelay waxyaabaha ay ku dhamaan ka shaqeysan yaadaga ku danda ayaan ka heli doonaa fiidiyoyaasha dhowr kadib quraanka sidee baa loo xafidi karaa leena quraanka waxyaabo ugu adag xafidada ku jira ayuu ka mid yahay marka insha Allah fiidiyoyaasha soo socdaan sida wararkii doona waxay ku dhamaan inta ka soo waxa ku rajeenay after waan hadii waqtiga afterka ku yahay habeen macna wanaagsan hadii aad aftertay insha Allah waxaan ku rajeenay haduu waqtiga suxurtayna suxur wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور